asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa habeenimo arbacaha bisha maajina ay sii galayso 9 sanada 2022 qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xabajoojintii laga dhaqangeliyey dalkaasi Ukraine oo u muuqato in lagu fashilmay kadib markii uu Ruushku bilaabay duqeymo xoogan oo ka dhan ah magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalkaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo hadlayay goor dhaweydna waxa uu sheegay in aan marnaba aqbali doonin in Ruushku uu la wareego dalkaasi Ukraine. madaxweynaha Ukraine waxa uu si qiiro leh ula hadlay baarlamaanka dalka Ingiriiska iyo waxyaabihii uu kala hadlay. kooxda TPLF madaxweynahooda Debretsion Gebremichaelna waxa uu sheegay in aan marnaba la kala qaybin doonin dadka Tigreega kadib guux iyo waliba xiisad ka taagneyd gudaha gobolkaasi Tigreega maalmahanba. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. soo dhawaada. aan ku bilownay wararka naga soo gaadhaya dalka Ukraine ayaa sheegaya inay dib u bilowdeen duqeymihii cuslaa ee dalkaasi Ukraine uu ka waday wadanka Ruushku, waxaana la soo tabinayaa in xilligan magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi ay duqeymo waaweyn ku hoobanayaan kadib markii uu Ruushku ku dhawaaqay dhowr maalmood oo xabajoojin ah oo uu sheegay in dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi isla markaana ciidamada Ruushku ay ku hareereysan yihiin inay magaalooyinka soo baneeyaan. waxaana xilligan ay u muuqataa in Ruushku uu gaadhay muddadii uu ugu talagalay in xabajoojintu ay socoto kadib markii uu bilaabay saacado ka hor duqeymo xoogan iyo waliba gantaalo uu ku tuuray magaalooyinka ay ka midka yihiin caasimadda dalkaasi ee Kyiv. waxaa la arkay dad fara badan oo kala cararaya kadib markii dadku ay wali ka qaxayeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi oo dadku ay si habqan ah uga baxayeen magaalooyinkaasi, balse Ruushka ayaa bilaabay duqeymihiisa. lama oga xilligan waxa ku soo beegay in Ruushku uu dib u bilaabo duqeymaha iyo waliba dagaalada xoogan ee uu dalkaasi ka waday kadib dhowr maalmood oo dadka ku dhaqan dalkaasi Ukraine ay ka nasteen duqeymaha iyo waliba gantaalihii uu ku tuurayay dalka Ruushku. waxaana Ruushku uu horey u sheegay in dadka reer Ukraine ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn loo baahan yahay in muddada uu siiyay ee xabajoojinta ay ka faa'iideystaan isla markaana ay baneeyaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. waxaa wali magaalooyinka ku harsan dad fara badan oo shacab ah oo sheegay inaanay garanaynin meel ay u qaxaan isla markaana halkaasi ay iyagu iska joogi doonaan, iyo qaar badan oo qorsheynaya inay xilligan kadib ka baxaan magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi. dad fara badan ayaa is soo tubay meelaha tareemada laga raaco iyo meelaha looga baxo dalkaasi oo ay doonayeen inay uga baxaan dhinaca wadamada Poland iyo waliba wadamo fara badan oo ku hareereysan dalkaasi oo Romania ay ka mid tahay. duqeymahan iyo waliba gantaalahan waaweyn ee dib uga bilowday dalkaasi Ukraine ayaa ka dhigaya in dalkaasi uu mar labaad dagaal dib u galay, iyadoo ciidamada dalka Ruushku ay xilligan u muuqdaan in wajigii labaad ee dagaalka ay bilaabeen. waxaana ay u muuqanaysaa in dalka Ruushku uu istiraatiijiyad cusub la soo bixi doono kadib markii maalmahanba uu Ruushku isku diyaarinayay wajiga labaad ee dagaalka. dadka Ukraine iyo waliba dowladda dalkaasi Ukraine ayaa sheegtay in Ruushku uu uga gol leeyahay xabajoojinta uu ka dhaqangeliyey dalkaasi muddada dhowrka cisho ahayd inuu uga dan lahaa inuu dagaalka uu dib u dardargeliyo iyo waliba inuu dib uga fikiro qorshaha labaad ee dagaalka uu ka sameynayo kadib markii sida ay dowladda Ukraine sheegtay uu ku fashilmay wajigii koowaad ee dagaalka isla markaana diyaarado badan iyo waliba dad fara badan oo askar ah lagaga dilay dalkaasi Ukraine intii uu socday wajigii koowaad ee dagaalka dalkaasi Ukraine oo Ruushku ku qaaday. dowladda Ukraine waxay sheegtay in wajigii koowaad ay iyagu ku guuleysteen isla markaana dowladda Ruushku ay fooda soo galin weyday magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ku yaala oo ay ka mid tahay caasimadda dalkaasi ee Kyiv. inkastoo magaalada ugu muhiimsan uguna dadka badan dalkaasi Ukraine ay dhumiyeen ciidamada dalka Ukraine ayaa la soo tabinayaa in ciidamada Ukraine ay ku guuleysteen inay difaacdaan caasimadda dalkaasi. waxaana ay sheegtay dowladda Ukraine inay wali ku dagaalamayaan magaalada ugu dadka badan dalkaasi ee Kharkiv oo dagaalo xoogan ay ku dhexmarayeen gudaha magaaladaasi ciidamada dalka Ruushka, iyagoo sheegay wararkii ugu dambeeyay in ay ku dileen sarkaalkii ugu sarreeyay ciidamada Ruushka ee hogaaminayay duulaanka lagu qaaday magaaladaasi Kharkiv ee ciidamada Ruushku ay gudaha u galeen. waxaana ay sheegtay dowladda Ukraine inay magaaladaasi u baneeyeen xeelad dagaal kadibna ciidamada Ruushku ay ku jabeen gudaha magaaladaasi. dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo goor dhaweyd hadlayay ayaa sheegay in guud ahaanba aanay aqbali doonin dowladda Mareykanku
in Ruushku uu la wareego dalkaasi Ukraine isla markaana dowladda Mareykanku ay wax walba u sameyn karayso in Ruushka laga mamnuuco inuu halkaasi ka sii dagaalamo. Waxa uu sheegay Joe Biden in dowladda Mareykanku ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo duulaanka Ruushka ee dalkaasi Ukraine lagaga jawaabayo. waxaana uu sheegay Joe Biden in dalka Ruushka lagu soo rogay cunaqabateyn adag oo xilligan ay u muuqato in dalkaasi uu wajahayo xaalad adag oo gudaha dalkaasi ka jirto, balse madaxweyne Putin uu qarinayo oo uu doonayo in dadka Ruushku ay ku mashquulaan duulaanka ka socda dalkaasi Ukraine. waxa uu sheegay in cunaqabateynta dalka Ruushku aanay u sii saamixi doonin in ciidamada dalkaasi Ruushka ay ka sii dagaalamaan gudaha dalka Ukraine. waxaana uu sheegay in Ruushka ay ku filan tahay oo kaliya cunaqabateynta ay saareen wadamada dunida. waxaana uu ka dalbaday inay wadamada dunidu ay sii xoojiyaan cunaqabateynta iyo cadaadiska la saarayo madaxweyne Putin si uu uga noqdo duulaanka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine, balse dhanka Mareykanku aanay marnaba aqbali doonin in dalkaasi uu gacanta u galo Putin. qiimaha saliidda ee wadamo fara badan oo dunida ku yaala ayaa xilligan u muuqda mid sare u sii kacaya, iyadoo laga dareemayo wadamada dunida guud ahaanba in saliiddu ay xilligan qaaliyoobayso. isla markaana wadamo fara badan oo ku yaala dunida oo ay ugu daran yihiin wadamada reer Yurub ayaa xilligan wajahaya caqabado waaweyn oo la xiriira dhanka shidaalka ama saliidda oo qaaliyoobaysa. waxaana wadamo fara badan oo ku yaala Yurub xilligan laga dareemayaa in dhinaca dhaqdhaqaaqa dhanka gawaarida iyo tareemadaba ay sii yaraanayaan sababo la xiriira dhanka shidaalka oo sii qaaliyoobaya. wadamada dunida ku yaala intooda badan waa wadamada Yurub iyo Afrika ayaa laga dareemayaa qiimaha saliidda oo kor u sii kacaysa, iyada oo caqabad xoogan ay ku noqon karayso haddii uu dagaalka dalkaasi Ruushku uu sii socdana ay saliiddu sii qaaliyoobi karayso. haatan anagna wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigreega ayaa madaxweynaha Tigreega ee kooxda TPLF hogaamiyaha Debretsion Gebremichael waxa uu sheegay in guud ahaanba aanay marnaba aqbali doonin dadka Tigreega in la kala qaybiyo, oo waxa uu ku sheegay cadowga Tigreega ay soo farageliyaan arrimaha gudaha ee maamulkaasi Tigreega. baryahanba waxaa jiray guux iyo weliba xiisad ka taagneyd gudaha gobolkaasi Tigreega oo xisbiyada mucaaradka ah ee ka baxsan kooxda TPLF ay ku dhaliilayeen kooxdaasi inay guud ahaanba isku darsatay arrimihii gudaha ee gobolkaasi Tigreega, isla markaana aanay jirin wax talo ah oo laga siinayo axsaabta mucaaradka ah ee ka dhisan maamulkaasi Tigreega. kooxda TPLF oo baryahanba dagaal culus kula jirtay dowladda federaalka dalkaasi Itoobiya ayaa xilligan dib u bilowday maamulka deegaankaasi Tigreega, isla markaana waxa ay fureen axsaabta mucaaradka ah iyo weliba guud ahaanba arrimaha gudaha ee maamulkaasi Tigreega. waxaana ay sheegeen inay furan yihiin cid walba oo wax ku darsanaysa maamulka Tigreega. waxaana xilligan joogsaday guud ahaanba dagaaladii ay kooxda TPLF kula jirtay dowladda federaalka dalkaasi Itoobiya, inkastoo labada dhinacba aanay weli gaadhin xabad joojin rasmi ah iyo weliba heshiis lagu qanacsan yahay. waxaana uu socday wadahadallo aan toos ahayn oo loo kala dabqaadayay labada dhinac, iyagoo wadahadalladaasina ay ku soo dhammaadeen fashil. waxaana labada dhinacba xilli walba ka dhex bilaaban karaya xiisad iyo weliba dagaal waa dowladda Itoobiya iyo kooxda TPLF haddii xilligan aan dib loo bilaabin wadahadal rasmi ah oo dhexmara TPLF iyo dowladda Itoobiya. akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.